جزا الله الشيخ خير الجزاء. سؤال ugu horeysa ee aynu ku bilaabayna waxay tahay su'aal oranaysa guud ahaan sharaa'icdii samaawiga ahaa ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo dejiyay oo ay kamid tahay shariicadeena Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu Nabi Maxamed ku soo dejiyay sidee bay ula dhaqmeen dadka dhintay sidoo kale su'aasha waxaan raacinaynaa dadka dhintay oo la gubaa waa caqiido ay aaminsan yihiin ama aaminsan dadka dhintay in la gubo. alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira. sharaa'icda ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey dhammaanteedba waxay isku waafaqday oo masalada asal ay uga dhigtay basharka ama bani aadamka dhinta in la aaso oo dhulkii ilaahay subxaana wa tacaala uu ka abuuray lagu celiyo. صحابي قال هذا أبي وحو كوريي نبي محمد عليه الصلاة والسلام سيدا حاكم ومستدرقي سكوريي إسناد صحيح إنه نبي عليه الصلاة والسلام يريه لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء ويترا نبي آدم مركو قيريودي ملائكة بيكو ميدي ترك لديمان باري ميدين وألحدوا له حباشي أيو قضين إيل بي السميين وقالوا هذه سنة آدم في ولده وحانا يراهدين هذا ليس كيراهدين معها ووضد نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام وشديي أولاديس مركا حديث كاسوح الدليل يهي أصل كإنه يهي بني آدم كمركو دينطو إن لا عاصر سيدا وحا الشيغي أهل العلم يقاركود ابن عاشور ومفسرين كم عانك كتاب كيس الرياضة التحرير والتنوير وحو كل هذا الدير وهذا الكيساسي كم فجاءت الشرائع الإلهية بوجوب الدفن في الأرض شريعوين كإلهي وسودة وحي لي مادين إن واجب تهي قفك الدنتا إن دولك الغواص آياتها قرآن كتابك إلهي وسودة كويا لنا waxay tilmaamayaan arintaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayado dhowraba ugu mana sheegtay bani aadamka in marka ay dhintaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu amray oo u jideeyay in la aaso oo meydkooda dhulka lagu qariyo. ayadaas waxa kamida qowlullaahi ta'ala alam naj'al al-ardha kifata ahya'an wa amwata dhulka miyaanan ka dhigin mid bani aadamku markay nool yihiin ay ku dul nool yihiin marka ay dhintaana lagu asturo lagu qariyo waa man sheegad Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu man sheeganayo arinta noocaasiya inuu suurta galiyo. waxa kamida qowlullaahi ta'ala thumma amatahu fa aqbara Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri bani aadamkii gaaloobi waliba Ilaahay uu ka hadlayay qutila al-insanu ma akfarahu ba udalila cid laga hadlaya aayadkan ay ka hadlayeen kaafir yahay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu nafta uu ka qabtay aqbarahu wa amara bidafnihi wa amkana al-insana min dhalika Ilaahay wuxuu amray in la aaso dhulka lagu aaso arinta noocaasiyana Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu suurta galiyay. tafsiirka noocaasi aayada lagu fasirana ma aha tafsiir anigu aan iska ikhtiraacay هذا تفاسير تودنا ذاكتو ساسات كواركس بل ابن عباس بايدي أيضا مركو فسيري أمر بدفن تكريما له إلا أصابوا أمري إلهي كرامين وكرامين يو بني آدم كوماموس يا أوجد ابن جرير الطبري بات كواري كرتا قرطبي بات كواري كرتا وعد كواري كرتا جميع التفاسير مركا آيات داسي أي فسيريان سيداسي أي شيئين إن الدليل طهي إنه إلهي بني آدم كأقوم النشأتي إنه أمري مركا دينتان إلا عصر وحلم إذا قولك إلهي سبحانه وتعالى ويري مركو بني آدم كوري منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى دول كانوا دين كابر بني آدم عيد بالقابر إذا أنا ندكو علم دونا بمعنى ولا ندكو آسي دونا سمفسرين تيم بدونا كم إذا يراهدين إذا أنا لدين كسو صار دونا marka suurta la afuufo waxa kamida aayadahaas aayada Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kaga hadlay in aadamkii koobaad wax dilay ee walaalkii dilay
فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه إلهي سبحانه وتعالى وحو صاد ديري tukahaasi oo dhulka qodayay ma tuka kaloo dhintay buu ku aasayay mise dhulkunbuu faqfaqayo dabeetana taasuu ku xusuusiyey in wax la aaso labadaba waa la yidhi si uu tusiyo sida walaalkii u asturaye meydkiisa waxa weeyaan uu qarinayo aayaddan ahlucilmigu waa u daliishadeen in qofka dhinta waxa weeyaan la aaso diinulislaamna arrintaasi ayaa camaliyan ula timi oo wixii ka horreeyo ahaa in dadka qaarkood dadkooda dhinta ay gubi jireen qaarkood inay bahalaha u dhigi jireen diinulislaam way burisayoo meesha ayay ka saartay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam muslimiintii uxud ku shahiday in la aaso ayuu amray sidaasoo kale gaaladii lagu laayay dagaalkii beder kuwoodii madaxweynta ahaa ee hogaamiyaashooda ka mid ahaa rasuulku wuxuu amray in ceel lagu guro halkaasi lagu qariyo oo lagu aaso arrinta ku saabsan yay sunno iyo waddo iyo caqiido u tahay in dadka dhintay la gubo oo tacdiiman lahum weyneyn la weyneynayo awgeed loo gubo waxa arrintaasi ay waddo u tahay oo caqiido ay u tahay kufaarta kuwa ka mid ah waxaa ka mid a hunduuska nimanka la idhaahdo buudiyiinta saas oo kale kuwa reer ruum ka mida oo iyaguna sidaasi yeeli jiray haddana kuwa reer yurub ka midi arrinta noocaasi waa kaga daydeen mushrikiinta ay arrinta noocaasi caqiidada ay u tahay sidaas oo kale mushrikiintu waxay samayn jireen oo faan bay u arki jireen in banaanka la dhigo oo bahalaha loo waro ninka waxa weeyaan la dilo arrinta noocaasina waa ku faani jireen ahlucilmiguna arrintaa waa caddeeyeen ibnu caashuur oo kale aayadaha aynu sheegnay markuu fasirayo sidaasi ayuu tilmaamay oo wuxuu yihi raximah llahu tacaala ودل قوله تعالى وفيها نعيدكم على أن دفن الأموات في الأرض هو طريقة شرعية لمواراة الموتى سواء كان شقا في الأرض أو لحدا لأن كليهما إعادة في الأرض فما يأتيه بعض الأمم غير المتدينة من إحراق الموتى بالنار أو إغراقهم في الماء أو وضعهم في صناديق فوق الأرض فذلك مخالف لسنة الله وفطرته waxay sameeyaan ummadaha qaarkood oo diin haysan oo dadkooda dhintay inay gubaan ama inay biyo ku qarqiyaan ama sanduuqiyo intay ku ridaan inay dhulka dhigaan waa mid khilaafsan jidkii ilaahay ilaahayna bani aadamka uu ku hanuuniye uu ku beeray lianna alfitrata iqtadat ana almayita yasqutu cala alardi fayajibu an yuwaara fiiha waxa sunnada ilaahay keensatay iyo arrinka ilaahay u jideeyey qofku markuu dhinto dhulka inuu ku dhaco taa marka waxa waajibaya buu yidhi in dhulka lagu aaso waxaa kaloo uu yidhi sheekhaasi markuu fasiraya alam najcal arda kifaata axyaan wa amwaata وعليه فلا يجوز إحراق الميت كما يفعل مجوس الهند وكان يفعل بعض الرومان ولا وضع لكواسر الطير كما كان يفعل مجوس الفرس وحيري ما بنانا markaynu aayadaha eegno meydka in la gubo sida ay sameeyaan hindida majuusta ah iyo sida ruumaanka qaarkood ay sameeyeen in shimbiraha wax jabsadee ruuga loo dhigaana ma banaana sida majuusul furus ay sameyn jireen وكان أهل الجاهلية يتمدحون بالميت الذي تأكله السباع أو الضباع وهو الذي يموت قتيلا في فلاة أهل الجاهلية إسلام كورتي dadkii joogay waxay ku faani jireen qofka la dilo dabeetana banaan lagaga tago ee dugaaga iyo waraabayaasha iyo waxyaabahaas ay cunaan waxa kale oo cadeeyay cid ay aqeedo u tahay iyo diin arinta noocaasi ahay علماء لجنة دائمة markii la weydiiyay dadka dhintay in la gubo diinta islaamku maxay ka qabtaa nin muslim baan ahay oo faransiisa waxaan ku dhaxnoolay kristaan iyo buudiyiin waxaana ay iga dalbeen bal islaamku wuxuu ka qabo masaladaas waxay ku jawaabeen xarqu juthath al-mauta amal ghayr jaiz shar'an wa min amal al-wathaniyin shahidkuna waka وهو من عمل الوثنيين
in dadka dhintay la gubo taa diin laga dhigtaa waa shaqada kuwa asnaamta caabuda sidaas oo kale daarul iftaa almasriya markii masaladaasi ixraaqul mowta ku saabsan la weydiiyey waxay yidhaahdeen waa xaaraan waayo waxaa ku jira tashabuh bilmajuus walwathaniyiin oo iyaga ayaa masalada noocaasi ahi diin iyo caqiida ay u tahay wallahu aclam